shacabka gobolka Gado ayaa si iskood ah isu xilqaama kana faa'iideysta kheyraadka gobolka uu leeyahay halkani aan hadda ku suganahay waa beer ku taala jiinka webiga Daawo beertani ayaa waxa iska leh wiil Soomaaliyeed oo qarash aad u tiro badan galiyay asagoo aysan jirin cid uu ka haysto dhiirigelin iyo in uu horay u socdo waxa agtiisa taaganahay geed liin ah sida inii muuqata waxaana ku yaala goobtan geeda aad u tiro badan oo isugu jira liin cambe babaay iyo waliba noocyaha kale ee dalagga laga faa'iideysto waxa loo dhoofiyaa qaybo kamid ah dalka sida magaalada Baydhabo iyo caasimadda ee magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed ayaa leh dhiiranaan iyo karti aad u tiro badan oo ay ka faa'iideystaan xoolaha arkaysid baahan xoolo laga keenay dibadaha balse waa xoolo laga shaqeeyay gudaha gobolkani Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo webiga Daawo oo agmara webiga Daawo waa mid 9 bilood oo kali abiye wada 9kaasi bilood ayay si toos ah uga faa'iideystaan gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado ayaa ka hadlay wax soo saarka gobolkani Gado waxaana ugu baaqay wasaaradaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya in ay si degdeg ah uga soo jawaabaan codsiga uu markaasi ka codsaday dawladda dhexe oo ay kamid tahay in wasaarad kasta wax qabadkeeda ay ka samayso gobolkani Gado ay muuqdaan magaalada Bilaaran wanaagsan dad dawladnimada jecel ay tagayeen kolay isaan ku tahay maamulada dawladda iyo gobolka ka socda safar kala shaqeyn safarin ku soo maray dawladda koodan oo marna hadda aan joogno degmada Xaawa dad wanaagsan oo dawladda ay tahay boqol waxaan sameeyay wasaaradda beeraha wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga dhammaan wasaaradaha qaybahooda kala duwan in ay gobolka imaadaan wasaarad kasta meesha ay qaabilsanayeen waxay ka qabata runta sida aad sheegayso gobolka Gado inta badan oo weliba ayaa mara waxay leeyihiin kheyraad badan oo beeraha laga soo saara dadka kale oo sida soo abaabulaya oo ku rafaadeen وسارد عاون السنة الناس الجيل ليه كتجيب لنا وحاء عاون وكمان سنة الجيل لحد حكومتي إن شاء الله تعالى وحنا الجيل خيرات وهذا كلام عني إن أي واحد ضد أو قبض أو ولا جرك على البلد وقبض وأنت يعني جعل هاي وأنا ما $2 aheed hadda $2 ka soo bixisay haafkan jawaanka liinta ah marka qadameyqo ku noqonaya $4 $2 oo kale maxaad ku samaysaa kusamaysta 2 ilmeyga aan ugu gataa meeqa cunuga haysata 4 caruur aw aabahood waa dhintay adiga ina xamaalato maxaa kugu kalifay aabalaan ay ugu kalifay markii aadan liintan bilaabin ka hor iyaa ku caawin jiray ilaahay baa caawin jiray haye marka hadda liintana keenaysa $2 maxaad ku gadataa goysa $2 waa laba kala soo caana haye raashinkii kale ilmaha la siin lahaa xagee ka heshaa dariska iskala jooga waxa ii sheegtay inaad meel miyi ah ka timid oo hadda magaalada imaaday yaa ku baray beerahan in laga xamaash dadka iska socdaan iska soo raacay hadda waxaan ku rajeynayaa inuu Ilaahay ku barakeeyo wax ka fiicanna waad heli doontaa dadaalkaaga sii wad ha ka caajisin ha is oranin $2 waxba ma ahan adduunyada arkaysid waa shilin ku dar waxa laga yaabaa maalin inaa adiga dad kale wax tarto marka hor u soco gadaaha caajisin $2 inay wax ku tareenin ha u arkin hor u socod samee insha Allah haye aniga waxa la yiraahdaa Iftiin Ibrahim Mogo Iftiin waxaan ka dambeeyo waa maxay waa coos oo heed abuurtay hay'ad ba u abuurteen oo in ka iibsata miya hay'ad xagee geynaysaa hay'adda waa kaydinaysaa xilliga abaaraha ayaa dadka baadiyaha iyo dadka xoolalayda loo qaybiyaa wasiirka beeraha waxa uu baaqaynaa in wixii xuquuq aan u leenahay oo beeraha gobolka Gado ku yaal sida gaar ahaan Balad Xaawo in wixii oo xaq aan u leenahay inuu nasiib waxaan ugu baaqleen in matoorada naga duugaan matooro ay dawladna siiso cagafna siiso iyo qalabka kale oo maartay beeraha lagu fasho sanad kasta gudaha dalkani Soomaaliya dawladihii isku xigay ee soo maray waxa la baasmareeyaa miisaaniyad sanadeed ay qaataan wasaaradaha kala duwan sida midda ammaanka wasaaradda caafimaadka waxbarashada wasaaradda beeraha wasaaradda horumarinta macdanta iyo macluumaadka kale taasoo ay xaq ku leeyihiin dadka u dhashay gobolkani Gado
dowladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayre iyo Farmaajo ayaa laga sugayaa in ay keenaan isbedel degdeg ah lagana arko gobolkan miisaaniyadda sanad kasta uu baasmareeyo baarlamaanka Soomaaliyeed. Samsam Cabdikariin Universal TV بلد حاو قد الصوماليا.